habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin guuldarrooyin kale ayaa ka soo wajahay dawladda Brexit maantana waxa mudanayaasha baarlamaanku ay codeyn doonaan in dib loo dhigo ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub warbixin dheeraad ah ayaanu idinkaga haynaa iyo falanqeyn qodobada kale caawana waxa kamid ah shirkadda Boeing ayaa go'aansatay in dhammaan ay joojiso diyaaradaheeda 737 Max kadib markii cadeymo cusub ay ka soo baxeen diyaaradii Ethiopia ee burburtay barnaamijka dooda caawa oo khamiisna waxaanu ku eegi doonaa maxaa hortaagan nabadeynta Soomaaliya iyadoo ciidamo badan oo ajnabi ah ay joogaan kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaan ku bilaabaynaa ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa isku dayaysa markii saddexaad in toddobaadkan baarlamaanku uu ansixiyo qorshaha heshiiska ay doonayso in Britain ay kaga baxdo midowga Yurub waxay ka digtay haddii aan la ansixin qorshahan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub inuu noqonayo mid dheeraan doona xalay waxa baarlamaanku uu markaasi diiday hanaanka in Britain ay kaga baxdo Yurub iyadoo waxaan heshiis la gaarin caawana xubnaha baarlamaanku waxay u codeynayaan mooshin ah in dib loo dhigo muddada ay tahay in Britain ay kaga baxdo in midowga Yurub sidan ay ahayd markii aqalka baarlamaanka lagaga dhawaaqay natiijadii codeynta oo markaasi isla markiiba lagu dhawaaqay ra'iisul wasaaraha oo xabeebsanayd ayaana hadalkeedii waxa ay ku celisay hadalkeedii ugu horeeyay oo mar kale ay ku adkaysatay sharci ahaan marka la eego xeerka ay Britain kaga baxaysa midowga Yurub wali waxa uu taagan yahay in Britain ku baxdo iyada oo aan hanaan heshiis ah la gaarin waxa ina hor yaalla waa in dhammaanteen aynu ogaano taasi waxa ay tahay fursadaha ina hor yaalla waa kuwii ilaa bilowgii ina hor yiilay waxaynu kaga bixi karnaa heshiiskii ay dawladdu labadii sannadood ee u dambeeyay kala xaajoonaysa midowga Yurub afti kale haddii la qaado waxa iman karta qatarta ah in aan Yurub lagaba bixin caawana xubnaha baarlamaanku waxay u codeyn doonaan qodobka article 50 waana xeerka ay Britain ay kaga baxayso midowga Yurub lama garanayo in ay inta ay noqon doonto muddada loo baahan yahay in lagu daro 27 dal ee xubnaha ka midowga Yurub ay tahayse in ay ogolaanaan muddo kordhintaasi haddaba mar sii horeysay ayaa madaxa midowga Yurub Donald Tusk oo fariin ku qoray Twitterkiisa waxa uu yiri markii aan wada tashi la sameeyay buu yiri guddida midowga Yurub waxa dhacday buu yiri inaan ka codsaday 27 dal ee xubnaha ka midowga Yurub in ay ixtiraamaan muddo kordhinta haddii UK oo aragto in ay muhiim u tahay inay dib ugu noqdaan hanaanka ay kaga baxayaan midowga Yurub haddaba dhowr arrimood ayaa ka soo bixi kara marka caawa la eego arintani iyo waliba sida markaasi loogu codeyn karo arinta waxa studio ay ugula sugan Faarax Igaal oo ka falooda arrimaha wadankan labada dhinac waan aragnay Faarax midowga Yurub iyo baarlamaankiiba xagee loo socdaa sida aad warbixintaada ku sheegtay Farxaano caawa kulan baa baarlamaanku u fadhiya kulankaasoo xogtiisu ay tahay sidii loo kordhin lahaa muddada article 50 ama xeerkan article 50 ee Lisbon 2007 European Union ama ururka Europe ay ku midowday ay heshiiska u ah muddadaas waxa la eegayaa muddada ay qaadan karto in dib u habeyn lagu sameeyo oo waxyaabaha la diidan yahay heshiiskani laba jeer baarlamaanku hoos uga codeeyay in dib u habeynta lagu sameyn lahaa muddada ay qaadan karto sida aad sheegtay Donald Tusk wuxuu sheegay in hawshan European Union ama midowga Europe ay ogol yihiin laakiin ay u baahan yihiin sabab ay waqti loogu dhigo sabab marka ma isleedahay caawa marka sabab ka soo bixi karta codeyntan haddii se mar kale la diido in dib loo dhigo hadana maxaa dhici kara caawa sida anigu aan ifafaalahayga waa la ogolaanayaa in la kordhiyo waayo ra'iisul wasiirku ma ay sheegin muddada ay u baahan tahay in la kordhiyo laakiin in aqalka baarlamaanku isla qaato in muddo kordhin lagu sameeyo ay u badan tahay
waxa markaa ka soo baxaya European Union ka midowga Europe doorasho ku soo socota doorashadaas waxay dhacaysaa May bay dhacaysaa 19 May bay dhacaysaa kulan baa ka horeeya European Union laftigooda ay soo imanayaan marka arrimahaas iyo sidii raali looga heshiiskan shuruucdiisa xuruufta weeraha wax laga bedeli lahaa muddada oo la isku qabatsiin lahaa maxay marka maxaa labada dhinac marka haddaan fahano dadka si fudud aan u sharaxno labada dhinac faa'iidooyinka ay ku qabaan ama dhibaatooyinka ay ku qabaan maxay tahay sida uu socoto heshiiska dawladda Ingiriisku ay kula heshiisay waa heshiis waxa meesha jira waa heshiis iyo heshiis la'aan heshiis kale ma jiro heshiiska dawladda Ingiriiska ra'iisul wasaare Theresa May ee soo qaaday dib u habeyn buu u baahan yahay dib u habeynta haddii la isla qaato oo waxa dib loogu soo celinayaa baarlamaanka week bacdi ma saddexaad in baarlamaanku heshiiska ansixiyo heshiiska haddii uu ansixiyo sidee ahayd 29 March baa laga baxaya dabeetana waxa la geliyaa sidii loo kala guri lahaa arrimaha midowga Europe iyo UK yay u darantaad isleedahay marka labada dhinacba sidii lagu heshiiyay noqon weydo labada dhinacba wadankan Ingiriisku sovereignty buu leeyahay oo isagoo aan cidda kala tashan ayay wuxuu dhan joojin karaan kana bixi karaan Europe laakiin sidana ugu ma jirto waayo arrimo ganacsi arrimo technology haday noqoto xiriir haday noqoto bulsho haday noqoto wax aad u badan ayaa iskaga xidhan xeerarka dalkan aynu ku dhaqanaa Ingiriiska aynu ku dhaqano 70% wuxuu ka yimid European Union ka yimid marka markii Ingiriisku ma oran karayo waanu ka baxnay waayo iyaga laftigoodii ayay dhibaato ku tahay dhinaca kale markaad eegtid Europe dalalka dhaqaalaha Jarmalka dhaqaalaha Jarmalka hoos u dhac baa ku yimid hoos u dhacaas wuxuu keenay kalsoonida warshadaha iyo kompaniyada baabuurta sameeya oo kale inaanay kalsooni ku haynin marka labada dhinacba dhibaato ay ku hayaan dhibaato ku noqonaysaa dad baa waxay soo hadal qaadaan in ay suurtagalba tahay in afti labaad dib loogu laabto taa suurtagal ma tahay suurtagal way tahay marka hadda la isla qaatay caawa in la yiri waqtiga hal la kordhiyo ay u badan tahay in ay xildhibaanadu ay taa codeynayaan waxay imanaysaa arrimo badan baa ku xidhan haddii heshiiska week bacdi dib loo soo celiyo oo guriga aqalka uu aqlabiyad ku ansixin waayo heshiiska arrimo kala imanaya waxay imanaya in kalsoonidii xitaa prime ministerka ra'iisul wasiirka dib looga noqdo in aftidii dadka dib loogu celiyo arrimo badan baa imanaya aad iyo aad baad mahadsan tahay Farax Cigaal oo ka faaloonaya arrimaha Brexit iyo ka bixitaanka midowga Europe ee wadankan UK markana shirkadda Point ayaa waxa ay sheegtay in ay ogolaatay go'aanka hay'adda saadaasha hawada Mareykanka in ay si ku meel gaar ah uga joojisay dhammaan diyaaradaheedii 737 Max dunida oo dhan go'aankan waxa uu yimid kadib markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay in ay jiraan su'aalo loo baahan yahay in laga jawaabo kadib shilkii diyaaradii Ethiopian Airlines oo ay ku dhinteen 157 qof oo saarna diyaaradda sanduuqeedii xogta kaydinayay ayaa la sheegayaa in la baarayo oo magaalada Paris loo qaaday aadan maxamed cabdi salaamiin ayaa ka waramaya maalintii arbacadii goobta shilku ka dhacay ee Itoobiya ayaa noqotay goobta murugada ee qowmiyada badan rakaabka iyo shaqaalaha oo ka kala yimid 5 wadan ayaa ku dhintay diyaaradda oo meel bannaana ku dhacday Axadii kadib 6 daqiiqo markii ay kacday diyaaraddu waqooyiga Ameerika ayaa waxay ahayd mid ka mid ah goobaha yar ee Boeing 737 Max 8 weli laga ogolaa inay ku duusho mas'uuliyiinta duulimaadyada ee halkan ayaa ku adkaysanaya dalabkooda in la raaco xeerarka ammaanka Trump ayaa ku dhawaaqay inuu isbedelay waxa aan doonaynaa inaan amar degdeg ah soo saarno oo lagu mamnuucayo in la joojiyo dhammaan duulimaadyada 737 Max 8 iyo 737 Max 9 nabadgelyada dadka Mareykanka iyo guud ahaan dadka oo dhan waa mudnaanteena ugu sareysa diyaarad kale oo Boeing 737 Max ayaa shil ku dhacday xaalatan lamida bishii Oktoobar ee la soo dhaafay dalka Indonesia taas oo ay ku dhinteen 189 qof Canada waxa ay sheegtay in ay jiraan cadeymo cusub oo tilmaamaya xiriirka ka dhaxeeya labada shil This is new information. Tani waa warbixin cusub oo aanu helay oo la qiimeeyay subaxnimadan taasi oo ka timid satellite ee shaqeynayay oo aan idhaahday aan wali la xaqiijin inay isku mid yihiin macluumaadkan diyaaradan iyo kuwii Lion Air kadib markii la baaray cadeymo cusub oo laga soo ururiyay goobaha shilka arbacadii maamulka hay'adda duulimaadka ee Mareykanku waxa ay gaareen go'aankan jintuna waxa ay saameyn ku yeelatay David iyo gabadhiisa Maddie kuwaasi oo doonayay inay ka soo duulaan magaalada New York una soo jeeday habeenkii arbacada Edinburgh xaqiiqdii waxaan u malaynayaa in ay tahay go'aan wanaagsan joojinta diyaaradaha waxa ay ka ammaan wanaagsan tahay in raaligelin la bixiyo marka ay qatar dhinaca hawada ah ay timaado laakiin waxaan u malaynayaa in ay ogeysiin doonaan macaamiishooda marka duulimaadyadooda la baajiyo
iyada oo 737 max ay soo cagadhigatay caasimadda dalka Mareykanka. Boeing waxa ay sheegtay inay sii socon doonto kalsoonida buuxda ee ammaanka diyaaradda, laakiin taxadar badan oo laga muujiyay waxa ay ku talinaysaa inay si ku meel gaar ah ay u joojisay dhammaanba diyaaradaheeda. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa ansixiyay qaraar lagu soo afjarayo ku lug lahaanshaha military ee Yemen ay ku lug leeyihiin. codaynta ayaa ah mid lagu diidanaa siyaasadda madaxweyne Trump ee ku wajahan Saudi Arabia oo hogaaminaysa xulafada taageeraysa dowladda Yemen. dood waxay ahayd in Congressku ay go'aamin karaan xilliga dagaal la geli karo balse madaxweynuhu aanu qaadan karin go'aankaasi. khilaafka 4 sano socday ayaa waxa uu abuuray dhibaatadii bini'aadanimo ee ugu xumayd ee caalamka. dalalka deeqda bixiya ayaa isugu imanaya magaalada Brussels si lacag loogu ururiyo Suuriya. shirka oo si wada jir ah u qabanqaabiyeen qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii loo ururin lahaa 9 bilyan oo dollar oo dib loogu dhisayo dalkaasi uu dagaalku aafeeyay. qaramada midoobay waxay ku qiyaastay in 5.5 bilyan loo baahan yahay, taasi oo gacan lagu siinayo qaxootiga Suuriya ee ku kala sugan dalalka Turkiga, Lebanon, Jordan, Iraq iyo Masar. shirkadda Facebook ayaa u muuqata inay ka soo kabanayso cilad xun oo gashay kadib markii adeega shirkadaasi ciladu ay saameysay muddo 14 saac. waxaa la sheegaya in caalamka oo dhan ay saameysay, gaar ahaan shirkadda appska ay leedahay ee fariimaha la isugu diro iyo kan sawirada la iskula wadaago ee Instagram. dhammaan cilada waxaa la sheegayaa in Facebook weli aanay sharaxaad ka bixin waxa sababay. weli waxay noo soo socda oo qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan waa doodda caawa oo khamiisa maxaa hortaagan nabadeynta Soomaaliya. khubaro arrimaha amniga ah ayaanu la hadli doonaa wax yar kadib waan isku soo noqon doonaa. weli waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka ee BBC London. waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale. aan idin xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. guuldarooyin kale ayay soo wajahaysaa dowladda Britain ee dhinaca Brexit. maantana waxaa mudanayaasha baarlamaanku ay u codeyn doonaan goordhow in dib loo dhigo ka bixitaanka midowga Yurub ee qaaradda Yurub. shirkadda Boeing ayaa go'aansatay in dhammaan ay joojiso diyaaradaheeda 737 max kadib markii cadeymo cusub ay ka soo baxeen diyaaradii Ethiopia Airlines ee burburtay. dooda caawana waxaanu kaga doodaynaa nabadeynta Soomaaliya. madana dhaqaale mise dana shakhsiyadeed ama kuwa siyaasadeed ayaa hortaagan. sida aynu ognahay Soomaaliya waxaa jooga in ka badan 20,000 oo askari oo ka socda midowga Afrika oo loo yaqaan AMISOM. haddii aynu ogno howlgalka AMISOM oo isagu horseed ka ah nabadeynta Soomaaliya 20 February 2007 ayaa golaha ammaanku ogolaaday oo uu amray in midowga Afrika ay nabad howlgal nabadeed ay ka bilaabaan Soomaaliya iyagoo fududeynaya dib u heshiinta dhinacyada Soomaalida. bishii Agost ee sanadkii 2017 golaha amnigu waxa uu soo saaray qaraarkaasi oo lagu doonayay in tartiib ay AMISOM xilka amniga ay ugu wareejiso ciidamada Soomaaliya iyadoo markaasi la eegayo awoodda Soomaaliya. haddaba AMISOM waxa xubno ka ah dalalka Uganda, Kenya, Ethiopia, Burundi iyo Djibouti waxaana ka jooga Soomaaliya ciidamo badan oo lagu qiyaasay 20,000. haddaba nabadeynta Soomaaliya maxaa hortaagan waa arinta dooda caawa aynu ku eegayno barnaamijkan. waxaana igala qayb galaya Maxamed Caalin oo arrimaha siyaasadda ka faalooda
iyo cabdisalaam guuleed oo isna arrimaha amniga ka faalooda oo igula sugan stuudiyaha labadiinaba waad ku soo dhawaada barnaamijka cabdisalaam adaan kugu bilaabayaa Soomaaliya muddo fara badan baa la isku dayay dadaal fara badan la geliyay in nabad loo helo maxaa hortaagan farxaan waxaan isleeyahay waxa hortaagan waxaan jirin cid mas'uuliyadda leh yani mas'uuliyadda ama milkiyadda mas'uuliyadda amniga ama wadanka cid leh oo dhabarka saarata ayaan jirin marka taas ayaa hortaagan isleeyahay mas'uuliyadda amniga wadanka markaad fiiriso marka laga hadlayo amniga wadanka waxaan malaynayaa wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay in 23,000 askari ay mushaar qaadato waxaan arkaysi mudaharaad askartii laamiga isugu soo baxayo de mushaar ka qaylinaysa haddii marka ay 23,000 askari mushaar qaadatay haddii amisom ay 22,000 ka joogto waxaan ka hadlaynaa waa 44,000 askari 44,000 askari haddii ay ka howlgalayaan koonfurta Soomaaliya maxaa keenaya inay al-shabaab iyo dawladda Soomaaliya iskula soo ururaan magaalada Muqdisho marka taas waxay muujinaysaa inaysan jirin cid mas'uuliyadda amniga iskale waan gartay su'aashaasi caalim asna aan weydiiyo caalim maxaa hortaagan baad isleedahay in Soomaaliya nabad loo helo waxaan sheegtayba dib u heshiisiinta ayaa loo maraa adduunyada Soomaaliya kaliya qallaasa siyaasad kama dhicin waxay ka dhaceen Afghanistan waxay ka dhaceen Lebanon waxay ka dhaceen Liberia marka Soomaaliya ilaa hadda waxa la leeyahay miftaaxa dib u heshiisiinta oo ah ka horseedka u ah dhismaha ciidanka dhismaha dhaqaalaha iyo dhismaha waxbarashada marka arrimahaas marka laga soo tago laakiin caalamkii dadaal buu gelinayaa oo hadda wadamada sheegtay naftirkeeda dadaal fara badan baa la geliyay qaarkoodna runtii nabad baa laga dhaliyay ugu dambeyntii oo dagaalo soo maray marka Soomaaliya si inay 30 sano ay jiitanto maxaa u sababa waxa u sababa dadka Soomaaliyeed taariikhdii ay dagaalkii sokay ku reebay mar xagga diinta u dhaqaaqnay magaca qabyaalada u dhaqaaqnay mar xagga federaalka u dhaqaaqnay mar waxaan u dhaqaaqnay Soomaaliland marka udhaxaadka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa nuusan marka haddaan la helin in dadka Soomaaliyeed system heshiis ay galaan ma 4.5 ba qaranka lagu dhisi karaa ma federal ba lagu dhisi karaa ma Somaliland iyo Soomaaliya lagu dhisi karaa marka ilaa hadda wax madajaha wareer siyaasadeed baa ka taagan dadka Soomaaliyeed ee labeenta u ah bulshada waan gartay cabdisalaam adaan kugu soo noqdo arinta siyaasadda ayuu sheegayaa caalim inay asaas u tahay oo sale u tahay nabadeyntii adiguna hadda waxaad ka hadlaysay ciidamadii Soomaaliya waxaad leedahay iyo ciidankii joogayba mushaar la'aan baa haysa ma isqabanaysaa waxaan ku raacsanahay caalim horta haddaan xasilooni siyaasadeed la helin xasilooni abni lama helayo waa ku raacsanahay yani Soomaaliya waa wadan burburay waa wadan u baahan inay dadku wax isla yeeshaan dawladda Soomaaliya maanta xukunka haysa haddaad fiiriso maamul goboleedyadii iska dhaaf adduunkii kale maamul goboleedyadii ayadu malaysan inay xiriir kala dhaxeen ilaa kuwa deeon si xal ilaahay ogay ku wada shaqeeyaan maan haddaysan marka siyaasiyiinta mucaaradka hadday noqoto haddaysan qabiiladii Soomaaliya maamul goboleedyadii haddaan wada shaqeyno ka dhaxaynin waxaad leedahay oo siyaasadii aysan ka heshiis ahayn sidee amni lagu helayaa ciidamadan Soomaaliya u shaqeynaya aad u jeedaa kulligood beelo iyo qabiilay ka soo wada jeedaan marka dawladda Soomaaliya in conceptiga inay fahamto horta dhumucda muhiimadda ay tahay wararta dadkan faham wadayaasha dhaqanka faham qabiilka faham siyaasadda faham dan u soo jeeso ka bacdi askariga xuquuqdiisa inaad u hesho sida aan og tahay adiga aan ogahay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya waxay ahayd hay'adda ugu muhiimsan markii gobolka Banaadir laga hadlayo amnigiisa 8 bilood muddo laga joogaa la kala diray Soomaad garan 6 bilood ma lahan wax taliya hay'adda nabad sugiddu ma lahan ninkii kusimaha u ahay ee actingka u ahay 3 bilood wadanku uu ka maqan yahay marka waxaad u malaysaa markaan ku leeyahay mas'uuliyadda cid sheegata loo baahan yahay waxaan muuqanba wax cid mas'uuliyadda amniga ku maqan ama sheeganaysa ama wax iska saaraysan jirinba laakiin nabad sugidda marka laga soo tago ciidamada booliska ka hawlgalaya ciidamada militariga jooga ammaanka hawsha way socotaa qof oo mas'uul oo socda markaan ka soo tagno laakiin lacag badan baa ku baxda caalamiga adigu qudhaada waad ka soo shaqaysay saasoo tahay xilligaas iyo xilliganba weli qaraxyadii xamar way ka dhacaan maxaa xala farxan qaraxyadu way dhaceen wayna dhici jireen meelo badan ay qaraxyadu ka dhacaan laakiin sabab uma aan way dhici jireen waxa laga hadlayaa hadwal marxaladda meesha ay marayso waxaan xasuustaa 2 sano ka hor ciidamada amisom iyo ciidamada NSA da Soomaaliya dhul bay ka qabsanayeen al-shabaab meel kasta xare cusub ay dhisayeen afgooya la qabsanayay qoryooliya la qabsaday ilaa baraawalati waxaa muuqatay inay isballaarinayso dawladda Soomaaliya waxaa yaraanaysa awoodda shabaab ay leeyihiin dagaalku xamar wuu ka fogaaday magaalooyinku ka fogaaday hadda iska daayay waxay maraysaa
in magaaladii xamardeed shabaabkii waxa duqeynaya Mareykankii oo de meelay ku dhuntaan ilaayeen waxay soo galayaan gobolka Banaadir shacabkii hataa qaxaya gobolkii soo galay magaalada xamar markii la isku yimaado oo shabaabku madaxdooda isku dayeen inay ku dhuntaan shacabka dhexdiisa Mareykanku ma duqey doonaa dawladda Soomaaliya ma ku dhaafi doontaa shabaabku ma aamusi doonaan ma waxay dhihi doonaan waan wada gambanaynaa aamusna ma waxay sheego doonaan in qayb magaalada Muqdisho kamid xukumaan taasa maanta taagan oo u baahan xalin waan gartay caalin hadii ugu laabto caalin waxa tiri siyaasadda wax fara badan ayaa ku xiran laakiin ma loo xanimnaanayaa siyaasadda ilaa wadankii dagaal baa ka socda qof sidoo doon waxa ku tilmaamay koox xaq jir ah ka dagaalamaya wadankii in horta amnigi xoog la saaro Soomaaliya oo beeshii caalamkuna ay ka saacideysay Soomaaliya waxa walaal Faarax hadda aragtid baarlamaankii oo hotel degan wadankii oo hay'ado dadkan la leeyahay ama dagaalkan cusub islaamiyiinta oo hay'ado badan ciidan Ingiriis ah jooga Talyaani baa jooga Jarmal baa jooga ciidamo waxa jooga iyaguna ma taqaanaa shirkado ay leeyihiin marka haddii baarlamaankii wadanku aanu baarlamaan u dhaqmeen oo yahay dad holiday hotel ku degan waa siyaasad weey maxaa dhacay guddigii difaaca ee baarlamaanku tirakoobka ciidanka ma hayo madaxtooyadii iyo xukuumadihii ma kala qaybsana marka dagaalkan ku jirna waa noocay ma dagaal dawladnimo aan ku jirnaa mise dagaal waxaan ku jirnaa islaamiyiin ah marka Soomaaliya haddaan siyaasadda loo marin wax walba oo nooca dagaalka ku jirna waa noocay aan cadayn way fududahay in la yiraahdo in siyaasadda loo maro ama xal in la helo adigu hadda nin aqoon-yahan oo qurbaha jooga tahay inaad iska dhaliisho dawladda iyo qolyahan hotelada degan way fududahay laakiin wax oo xal lagu helo oo wax ku oola noo sheeg hadda caawa laga qoro والله waxaas ka xal lagu helaya waxa laga qoray anigu 6 bilood ka hor Kabul baan tagay Afghanistan baan example kaaga soo qaadaya Afghanistan systemka dawladnimo ka jira ma aha kooxaysi Afghanistan dhibaatada haysta waxyaalo badan baan isaga midnahay arrimaha qabiilka isaga midnahay arrimaha dhalinyarada shabaabka ah ee Taliban iyo al-Shabaab baan isaga midnahay ee horumar siyaasadeed bay gaareen annaku inaan horumar siyaasi in taliyaasha ciidanka la iska bedelo in ma taqaana ciidankii tirkoob loo waayo in dagaalka ka socda buuraha ee Puntland ama kuwa ka socda muxuu ahaa Gado aanay xamar Hussein in qaraha xamar aanu xamar Hussein waxa soo marka wax lama eedeyn waxa weey aqliga wanaagsan waa in laga soo barta waa in Soomaaliya partnership la noqotaa Nigeria kale see Boko Haram oo la dagaalamo Afghanistan see wax loo isaga celiyo ISIS marka dawladii ma doonayso inay example soo qaadato waan gartay Cabdisalaam ma ku raacsan tahay waa sida oo caalin waxaan ku raacsanahay inaan wax badan ka wadaagno Afghanistan iyo Soomaaliya haday qabiil noqoto iyo haday noqoto burburka dawladeed iyo haday noqoto dagaalanka islaamiyiinta laakiin waxaan isleeyahay dawladda Soomaaliya taas wax uga fududa jiro ah intaas bal horta cid kale ku daysan dadka wax la leh horta waxa la fahamto waxa la yeelato ciidanka wasiirka amniga wasiirka maaliyadda markuu 23 kun aan mushaar siinay waan gartay waxaan isleeyahay 23 kaas kun oo askari way ku filayeen inay amniga sugaan aaway Uganda waxay dhahan maalmood hadaan baxan ciidankeena waa la daldalanaya Burundi waa ogaad macdaxs inay laadaan laba askanteeda qaadna kuwii ka tagay waa la laynay macnaheedu waxay tahay cid la isku halaya ma jirto marka niyo waxa loo baahan yahay yani wala ciidamadii ajnabiga xitaa oo banaanka ka yimid wadanka howlgalaya ayuu qudhooda ma la isku halayn karo waa kuwan la ku hanjabay waan ka baxayna waxay u baqayaan de naftoodii u cabsanayaan tiradoodu kuma filna al-shabaab waxay u jeedaan laakiin dadka qaarkood waxay leeyihiin dana dhaqaalaad jiro oo طبعا ده واحد مالينا دي Soomaaliya waa mashruuc waxaan maleynaa wasiirka marka waxa leedahay 20 kun oo ciidan oo hubeysan oo ajnabi ah way ku filan waayeen in xal u keenan Soomaaliya xitaa ay qudhooda leadership hadaan la helin hogaan dan leh oo dalkan wax ka qabta diyaar hadaan la helin waxaan isleeyahay tira ciidan hataa wax weyn ma soo kordhinayso caalin Burundi waxay tiri hadii hal kun nagala saaro oo wada baxayna Uganda sidoo kale way ka hadleen ciidamadan ajnabiga Soomaaliya joogay haddana sida ku hanjabaya maxay kula tahay ciidamadan jooga dad badan baa wadanka uga dhintay ciidamadan lacagtay bixiyaan waa lacag AU-da iyo wadamada deeqda bixiya ay keenaan maadaama ay ogtahay farxaan walaal wasaaradda gaashaandhigu dal kasta budgetka ugu badan baa ku baxa marka resource bay u arkeen in dakhliga ciidanka Burundi lagu kabo ama wasaaradda gaashaandhigu 20% bay qaadataa 80 kana ciidamada la siiya marka danay waxa weeye wasaaradooda gaashaandhiga budget helaysa talabaad dad badan way ka dhinteen oo u dhinteen ma taqaana dhibaatada Soomaaliya ka dhacday waqtiga naga dhamaaday waxaan rabaa marka caalim inaan ku siiyo 2 second ku siiyo maxaa xal Soomaaliya u ah adigoo ku soo koobaya 2 eray Soomaaliya waxa la in la helo barnaamij siyaasadeed ma 4.5 ayaa Soomaaliya dawladdu gaari kartaa
federaal bay ku gaari kartaa mise laba dowladood ku gaari kartaa waad mahadsantahay cabdisalaan adigana laba erey maxaa xal ah waxaa loo baahan yahay cid mas-uuliyadda waddanka qaadata iyo qorshe amnina la timaada aad iyo aad baad mahadsantahay kulligiinba waad mahadsantihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka caawa habeen wanaagsan dhammaantiinba